xarunta Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dil iyo dhac joogto ah oo ay ku hayaan maleeshiyaadka Ras Kamboni ee ka amar qaatay Axmed Madoobe. Qofkii lagu tuhmo inuu la shaqeeyo Al-Shabaab waxa laga qaadayaa telefoonka gacanta, waxaana soo badanaya dadka lagu dhacayo maalin kasta wadooyinka iyo dariiqyada, taasi oo ay wada ka dhiganayaan wax la shaqeysa Al-Shabaab. qofkaasoon shuqulba ku lahayn Al-Shabaab iyo waxay ka shaqeynayaan ciidamada Ras Kamboni, ayuu yiri nin magaciisa qariyay oo u warramay rasmi media. intaas waxaan ku soo gabagabeynaa warkii aan idinka haynay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warkuna wuxuu idinka imanayay xafiiska Muqdisho, imikana aan idinku wareejiyay xafiiska iyaga magaalada Gabiley iyo Qaamuuso. mahadsanid Burhan. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Burhan oo stuudiyaheena magaalada Muqdisho inooga soo tabinaya warka. halka aad weli nagala socotaan waa raadiyo rasmi oo aad ka dhageysanaysan boggeena internetka ee rasmimedia.com. waxa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena caawa, aniga oo wariye Qaamuus oo idinka soo jeedinaya warka stuudiyaheena magaalada Gabiley iyo wariye Burhan oo stuudiyaha magaalada Muqdisho idinla daadinay. waxaan idin leenahay dhammaantiin iyo dhammaanteeba sidaas iyo nabadgelyo.